horeyn inteenan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin daawade haddii aadan weli ka mid noqon bahweynta nagu taxan inaad subscribe dhahdid channelkan sidoo kalena haddii uu ku qanciyo muuqaalkan ha ilaawin inaad like saartid mahadsanid الله وبركاته معلومة أكسن موضوعنا لقى مسكرين. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم. أفر لباتنك ساعة قدام بيي قفل بوم مسلمة أفكا يقعنتكو هيي جوابك لدوانو الدقدقة أيان لقى بحيي سيدمت كايمادي الأزهر أورا إسلامية أفراد شخصيات عادي oo si cad ugu dhawaaqay dagaal ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta gudaha Faransiiska iyo dibadda Faransiiskaba waxaan tusaynaa Emmanuel Macron in uu taagan yahay dhinaca qaldan ee taariikhda inta aan galin tafaasiisha iyo waxa uu yiri Emmanuel Macron aan fiirino sida warbaahinta kala duwan ay arrinkan uga hadashay wakaalada Anadolu ee Turkiga wakaalada Anadolu waxay soo xiganaysaa hadal uu yiri Ali Ghirra Ad-Daghi oo ah xogayaha guud ee midowga culimada muslimiinta asagoo la hadlayo Macron ama u jawaabay Emmanuel Macron ayuu yiri islaamku ma xambaarayo dambiga iyo waxa ay sameeyeen hogaamiyaasha maqaarsaarka ama dabadhilifkaad adinka wadamada muslimiinta ka sameeyeen sidoo kale BBC-da waxa lagu soo qoray Macron wuxuu ku baaqayaa dhisidda islaam la jaan qaadayo qiyamka Faransiiska الأزهر أيانا أرنكان عمباريي وطبعا أريدو أدكسدو حكمدا إنو أدكسدي أريجا أرجيك حزة إسلامك فافهمتنا وأرك دونا سيدو كالا BBC دا إيمانويل ماكرون وحو بلان قاضي إن أولاد دقالامي دونو قوني وقوصت كإسلامك قدها فرانسيسكا سيدو كالا وحو أولاد وأركينا sidoo kale wargeyska al-Quds al-Arabi Emmanuel Macron wuxuu ku dhawaaqay si ballaarinta mamnuucidda xijaabka gudaha Faransiiska wuxuuna rumaysan yahay waa sida uu sheegay in islaamku maanta yaciishu azma fi kulli al-caalam in islaamku dhibaato wajahayo taasoo ah islaamku lama jaan qaadi kara maanta caalamka sidoo kale al-Jazeera Macron madaxweynaha Faransiiska islaamku maanta wuxuu ku nool yahay mushkilad dhibaato sidoo kale The New York Times oo aydana si kale uga hadlayso oo ah in uu ku baaqayo in uu ka hortagi doono gooni u goosadka islaamka gudaha Faransiiska wuxuu ula jeedana waa arkayna taban markan ma ahan koox gooni ah ama inuu dhaho waxaan la dagaalamaynaa koox hebel wuxuu yiri si cad u leeyahay mushkiladu waxay kala dhaxaysaa islaamka aniga ka Emmanuel Macron ahaan oo tabcan nin buko mushkiladu waxay kala dhaxaysaa islaamka dhibaatadayda waa islaamka ma ahan koox gooni ah وانا مدحوينه galbeed ah ee si toos ah u weeraray islaamka oo dhan diin ahaan iyo shucuub ahaanba inuu isku qabtay islaamka oo dhan inuu dhaho mushkiladu waa islaamka waxyaabuhu yiri waxa kamid ah asagoo hadalkiisan ku wajahayo jaaliyada muslimka ku nool Faransiiska wuxuu yiri hilibka doofaarka ayaad cuni doontaan adinkoo qaaqaawana waad ku dabaalan doontaan barkadaheena iyo xeebaheena waa mar uu la hadlayay jaaliyada muslimka waxaana xusid mudan inta badan Faransiiska dabcan dad asalkoodii ee ka soo jeeda waqooyiga Afrika sida Maghrib Algeria way jiraan laakiin sidoo kale waxaa jiro dad Faransiis cadaan ah muslimiin oo aad u badan waliba waxaan ognahay in Faransiiska ugu yaraan 150 sano oo ku sugnaa Jazaa'ir wadamo muslimiin ah waxaana dhacay dad badan oo cadaan Faransiis inay diinta islaamka galaan marka dadkan uu kala qaybinayo waa dadka Faransiiska oo u kala qaybinayo qayb diin ahaan ah inta badan markay hadlaan waxay dhahaan cilmaaniyadu waxay ku taagan tahay dadka inaan qaab diimeed loo fiirin Macron waa shakhsiyad aad u liidato sida uu mar yiri Erdogan inuu isu malaynayo Napoleon Bonaparte hogaamiye Faransiis ahaa oo kibir badna laakiin ugu dambeyntii si xun loo jabiyay laguna tuuray jasiirad yar oo ku taalo badda Atlantiga Emmanuel Macron wuxuu wajahayaa fashil iyo diidmo gudaha Faransiiska waxaan la wada soconaa mudaharaadkii aadka u ballaarnaa ee Faransiiska ka dhacay oo xitaa dadku ay lahayn waaba kacdoon sidaas darteed wuxuu raadinayaa xumbo uu cuskado dabcan cidda ugu sahlan maanta la weerari karana waa islaamka ereyga ugu khatarsan ee uu adeegsaday ninkan faashilka ayaa ah islaamku maanta wuxuu wajahayaa dhibaato daafaha caalamka oo dhan قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم wuxuuna ula jeedaa in islaamku uuna la jaan qaadi karin qawaaniinta cusub ee caalamka maanta mushkiladda ugu weyn ee uuna fahansanayn ninkan ayaa ah in uu islaamka la simaayo masiixiyadda oo ah diin aanan lahayn wax nidaam socodsiin karo nolol maalmeedka qofka caadiga ee masiixiga iyo xitaa dawlad ma jiraan qawaaniin ama axkaam qofka masiixiga oo noloshiisa maalmeedka ku maareeyo
markii la kala qaadayo ama farqiga u dhexeeya islaamka iyo kiristankana ayaa ah in islaamku yahay ruux diin ruuxi ah iyo weliba diin maamul diin iyo dowlad inuu yahay islaamka taasoo ah dadka leh yani طبعا hal la kala saaray diinta iyo xukunka inayna fahansanayn yani fasl الدين عن الدولة maxaa laga wadaa ma fahansano waxa laga wado sababtoo islaamku ma ahan shay gooni oo meel yaallo waa wax qofka noloshiisa dhan socodsiinayo halka kiristanku ama masiixiyadu tahay diin ruuxi ah kaliya oo aan la jeedno in qofku hadda kiniisad gala kaliya oo madaxa laalaadiyo ayna ahayn diin ka baxsan kiniisadda حتى يهود عادي قف يهود هذا ما أنت ويديسه كريستيان كحكا أميسي داد أنا دين لهين يعني يهودان ما كلا قاضان كريستيان كيهندوسكا wax farqa uma dhaxaysada oo arkaan sababta qofka kiristanka ah wax xalaal iyo xaaraan ma jiro waxaan hadii qiyamkaada ama dawladda aad matalayso qawaaniinta hadeen ogolayn diid hadii yani wax xaaraan ma lahan taasoo ah diinta kiristanka inay tahay diin eber diin habaan mantur diin bug inay tahay diin aan jirin Macron hadaba wuxuu rabaa islaam aanan naf lahayn islaam oo eg masiixiyadaas oo ah diin aan wax arkaan ku taagnayn inuu islaamku noqdo diin la sheegta kaliya sida kiristanka oo kale kiristan ayaan ahay wax ka dambeeyana ma lahan wax arabtid samee wax kasta xun oo xaraan samee wax ka dambeeyana ayna jirin aqal xumadiisa ninkan ayaa ah in islaamku uu la simaayo diin dhinac walba ka guran oo eber ah dagaalka ka dhanka ah muslimiinta Faransiiska waxa kamid ah sida uu ka dhawaajiyay xijaabka kale inuu weerar ku yahay xijaabku waa mamnuuc laakiin markuu wadamadanada imaado sida cali qira daaqi oo sheegay in dalaalimaha wadamadeena hogaamiye markuu la kulmaayana uu u sheego in uu ka dhaadhicay sameynta wax Faransiisku aaminsan yahay xurriyadda iyo cilmaaniyadda oo Emmanuel Macron sheeganayo waa in gabadhaas qof dumar ah dharkay rabta inay xirato mamnuuc ay ma xiran karto dharka rabto laakiin dal xor ahna sidoo kale cunnada xalaasha xalaal lagu magacaabo in yani uu dagaal ku yahay cunadan waa xalaal iyo cunadan waa xaraan inayna ka jireen Faransiiska oo qofka muslimka oo khansiirka cuna khamriga cabo sababta wuxuu leeyahay markaad leedahay khansiirka ma cunaayo doofaarka ma cunaayo ismana qaawinayo waxay ka dhigan tahay inaad leedahay Faransiiska ma ogoli wuxuu adeegsaday sidoo kale eray ah ma ogolaan doono in dawlad laga dhex dhiso jamhuuriyadda Faransiiska oo uu la jeedo in qofka muslimka ah uuna waxyaabaha nolol maalmeedka maalinta ay diinta islaamka amrayso inuuna samayn karin sababta islaamku waa diin ma ahan sida kiristanka oo kale kiristanka hadda maanta diin laguma tilmaami karo masiixiyada maanta diin laguma tilmaami karo qofka muslimka ah qorraxda markay soo baxdo iyo markay dhacdo habeen iyo maalin wuxuu sameeyaa waxyaabo ay diinta amrayso xaaraanta waa mamnuuc been ha sheegin khamriga ha cabin hilibka doofaarka ha cunin ha zinaysan ha isqaawin intaas ayuu diidan yahay qofka muslimka inuu ka istaago Emmanuel Macron wuxuu rabaa inaad intaas samayso hadii kale waxaa tahay gooni ogoosad muslim ah waxaa jira eray uu adeegsaday oo keenay in Azhar uu u jawaabo oo ah ereyga argagixisada islaamka ereyga argagixisana ma ahan tabcan in lagu xiro diin galbeedku ilaa hadda uu diidan yahay qeexida argagixisada galbeedka ilaa hadda ma ogolo in la qeexo bal hadda isu imaano aan qeexin wax argagixisa laga wado kada wa kada maya qof muslima fal u geystay argagixise tusaale mujrimkii muslimiinta ku xasuuqay New Zealand wuxuu ahaa Kristan waana fal argagixiso طبعا manager qof ku tilmaamay inuu yahay ama ku tilmaami karo argagixisada masiixiga sida iyaga u adeegsadaan argagixisada islaamiga ma jiro hal dawlad oo adeegsan karta ereygaas waliba waxa xusid mudan ninkan in uu dadkaas muslimiinta u leeqaab diineed oo uu ku qoray qorigii uu ku xasuuqay intaasoo yani dagaalo taariikhi ah intooda badan Andalus ka dhacay uu ku qoray laakiin ma jirto cid adeegsan karta ereyga argagixisada islaamiga الأزهر الشريف waxay ku eedeysay Emmanuel Macron been iyo isdabamarin xaqaa'iq asaga u gaar ah oo buga inuu samaysanayo inuu samaystay qanaacad asaga u gaar ah shahawaadkiisa iyo naftiisaas bugta la jaan qaadayso in aanan la aqbali karin ereyga uu adeegsaday oo al-irhaab al-islaami sida ay ayaguba u diidaan in la yiraahdo al-irhaab al-masiixi ama al-irhaab al-yahuudi argagixiso Kristan ah wadiideen ayaga in la adeegsado Faransiiska waxa ka dhaco si maalin la u eg falal ka dhan ah muslimiinta in gabar xijaaban la weeraro in masjid daaqadaha laga burburiyo iskuulada iyo jaamacadaha in laga ceyriyo gabdhaha laakiin cid ku tilmaami karta malahan faquuq iyo cunsuriyad ارتفعت نسبة الاعتداءات المرتبطة بمعاداة المسلمين في فرنسا بنسبة 70% خلال الشهر الماضي بحسب تقرير لمنظمة حقوقية فرنسية. ماكرون wuxuu wajahayaa sidaan sheegnayba taageero xumo sida lagu kasban karana sida ay maskaxdiisa qoranta u sheegtay waa in islaamka la weeraro balse uu taageero oga helo midigta xag jirka waana wadada uu raacay Trump
ترام انت انا la dooranin kor طبعا wuxuu ahaa nin lagu yaqaano in uu yahay bilyaneer faasiq ah wax mabaadi'i qiimaan aan lahayn baararka lagu tunto iyo khamriga noloshiisa intaas ay ahayd laakiin wuxuu adeegsaday waxa u roon dhagaha malaayiintaas cadaanka in dhaahiran ee sidii raxan ari ah meeshii la rabo loo kaxaynayo shacabkaas lagu tilmaamayo horumar iyo hadaarad waa kan doortay qof sida Trump oo kale sida hortanada ka muuqato mar labaad al-Quds Macron wuxuu sii ballaarinayaa dagaalka ka dhanka xijaabka markii qeexayaan طبعا xorriyadda iyo waxay tahay qiyamka waa xorriyadda shakhsiga ka bilaabayaan qofku wuxuu rabaa inuu xiran karo wuxuu rabaa inuu aamini karo laakiin arrinku markuu islaam la xiriira ma ogol ma yeelayaan gabadhaas muslimka ah qoftaas dumarka ah in ay xirato dharka ay rabto ma yeeli karaan ma ogolo mar walbana waa kuwana dhaho islaamku wuxuu caburiyaa dumarka waa aqliyad qariiba islaamku waa xaqaa'iq sugan oo waarto wuxuuna leeyahay xal lagu xaliyo dhibaato walba oo bini aadamka soo wajahdo waana diin ilaahay dhinaciisa ka imaaday mana ahan nidaam ku tiirsan waxa ku jira maskaxda dadka wax dooranayo ama xilli doorasho inuu islaamku marna kor u kacayo marna hoos u dhacayo islaamku waa qiyam sugan laakiin Emmanuel ma fahansano yuhuud badan ayaa Faransiiska ku nool Faransiiska waxa lagu tiriyaa wadanka ay ku nool yihiin yuhuud ugu badan markii laga soo tago Israa'iil iyo Mareykanka waa wadanka saddexaad sidaas oo tahay ma jirto cid si toos ah u weerari karto yuhuudaas waa laga yaabaa kuwa midig inay weeraraan طبعا way dhacdaa laakiin dawlad qof mas'uul ah waxa lagu eedeyn inuu saamiyada lid ku yahay waliba yuhuuda waxa xusid mudan sidoo kale in ayaga sharaa'icda diintooda ay farayso ay aad ugu dhagan yihiin maalin dhow yar youtuber masri ah oo ku nool Canada ayaa wuxuu yiri waxaan imaaday bangi waxaan ka rabay yiri lacag deyn ah oo ayna riba la soconin faa'iido ayna la soconin ninkii meesha joogay ayaa ayuu yiri ma yuhuudi baata maya muslim ayaan ahay wuxuu yiri waa qofkii muslim ahay ugu horeeyay ee ii imaado leh riba ma rabo arrinkan waxa lagu yaqaan yuhuud ay arkaan sameyn jirtay ayuu yiri oo ah yuhuudu ribada ma ogolo taasoo ah in qawaaniintooda yuhuudda iyo wax alla waxa ayaga u gaar ay dabaqdaan laakiin cid ka hadli karta ma lahan xitaa dumarka yuhuud inta badan way xijaabtaan hadda sawirkan markaad aragto kale maxaad u malayn sawirkan hortaada ka muuqdo waa dumar yuhuud ah ma ahan muslimiin laakiin xijaabkooda cid weerari karta ma lahan garkoodana cid weerari karta ma lahan maadaama ayna muslimiin ahayn طبعا ugu dambeyn waxa leena Emmanuel Macron waxa taagan tahay dhinaca qaldan ee taariikhda dadka awood badnaa ayaa ku fashilmay wadadan aad ku socoto طبعا waxaana dhab ah inaad fashilmi doonto adiga fashilka aad gudaha Faransiiska ka wajahayso mid ka daran in uu ku soo wajihi doono qodobkan intaan ayuu ka egahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh